dawdayaal waqti xaadirkan waxaa barbarkayga fadhida fanaanada caanka ah ee Sahre Halgan oo kaalin laxaadlana ku lahayd halgankii dib u xareynta Somaliland. Sahre Halgan waxaanu ka wareysan doonaa ka wareysan mayno sooyaalkeeda faneed, balse waxaanu ka wareysan doonaa doorkii ay dumarku laftoodu ay ku lahaayeen halgankii dib u xareynta Somaliland. maxay ahaydeen diin meyduna qiimo badan bay nagu joogtaa, qiimo badan. waayo ninkii maalintaa burca taagnaa unbaa nin waliba ha iska hadlo, laakiin ninkii maalintaa burca joogay iyo marxaladihii lagu jiray iyo ninkii maalintii berbera maxay ahaydey sheekh laga dhaqaaqayay taagnaa, anu kow baan ka ahaa, waan taagnaa, waan daawicinayay, waan dheeyey. marka waxa la yidhi Soomaalidu waxa la yidhi haddii lagu sheegana waa la is sheelaa, haddii lagu sheelana waa maxay ahayd waa haddii lagu sheegana waa la is sheelaa, haddii lagu sheelana waa la is sheegaa. marka waxaanu u baahannahay annagu haddaanu nahay dumarkii halgankan ka soo qayb qaatay weli intaa ay Somaliland jirtay, ma u maalinta anu waxaan u soo halgamayay meel xora oo qurux badan oo madaxdeedu fadhiyo inaan ka heeso. weli madaxtooyada Somaliland kamaan heesin. miyay logic tahay anoo 19 burca ka heesayay oo intaa 18 may jirtay heesayay inaan habeen baan tago waxaan ku yidhi way qurux badneed, waxaan ku yidhi hal heesaan ku darsado, waxa la yidhi programka kuma jirtid. marka maaha inaan cabanayo, laakiin de waxay ahayd nin walba waxa lagu qiimeeyay, mid wasiir baa lagu qiimeeyay, mid madaxweynaha lagu qiimeeyay, mid xildhibaan baa lagu qiimeeyay, mid barasaabnimo lagu qiimeeyay. annaga maxaana lagu qiimeeyay? aniga Sahre Halgan ahaan maxaa lagu qiimeeyay? inaan anigu adduunyana kama doonayo oo alxamdulillah waan dhaqanahay, waan dhisanahay, laakiin waxaan u soo halgamay inaan dalkayga xora oo dadkaygu fadhiyaan oo madaxdaydu fadhidaan ka haysto, kamanaan helin ilaa maantana kamaan helin. isku dayday marka xiriiro badan ma sameysay aad halka uga haysta madaxtooyada? anigu waan isku dayay, laakiin dadka maxay ahaydee ama kuwii hore ahaadaan ama kuwan dambe ha ahaadaan dadka joogaa maba garanayaan Sahre Halgan. marka insha Allah markay gartaan inta haddaan noolahay waan ka heystaa. ugu dambeyn wada hadal lagula jiro maxaa laga faa'iiday halgankii? horta waxaad ii kala saartaa waxa la nimaysa hore ka qaaday waa nimaysa fi ka qaaday nin hunguri iyo Somaliland kala saar. anigu nin hunguri iyo wuxuu xamar ka sheegayo shaqadayda maaha, laakiin Somalilandnimadu waa dadka ay qaaliga ku tahay, ninnaba ma farageliyo waxa koonfur ka socda ayaan aaminsanahay. laakiin ninka soori ka qaaday tay Allah u sahlo